si aad u kasbato dareenka dadka aad kulantaan samee qodobadan waxa jira waxyaabo qaar oo muhiim ah inaad ilaaliso iyo kuwa kale oo loo baahan yahay inaad ka taxadarto marka aad ka qayb galayso kulamada bulshada markii aad qof ama koox gaar ah goob kula sheekaysanayso fadlan qodobadan soo socda aad uga taxadar kow sheekadaha lagu furfurto mahadnaqa Eebbe subhanahu wa ta'ala iyo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam labo maanta oo dhan kaliya ha hadlin ee dadka kalena fursad sii saddex qofkii hadlaba ha ku soo boodin oo hadalka ha ka dhaxgalin ee sug inta uu markiisa ka dhameysanayo afar ra'yigaaga dadka ha ku qasbin taa beddelkeedana si degan oo aqoon iyo xigmad ay ku dheehan tahay uga dhaadhici haddii laga diidana dhib haw arag shan qofka hadlaya si fiican u dhageyso oo xitaa wajigiisa eeg ugu waa ixtiraam weyn lix qodobka laga doodayo ha baal marin ee marba mowduuc cusub ha abuurin isku day inaad ku ekaato wixii laga wada hadlayay toddobo inta la wada joogo aad isaga ilaali inaad moobilkaaga ku mashquusho sideed haddii telefoon muhiim ah uu ku soo dhaco dadka dhexdooda ha ku qaban ee ka idan qaado kadibna ka yara fogow sagaal haddii aad maqaayad ama hotel fadhiseen qarashka soo baxaya hal qof yaan looga kala dhuuman ee dhexda lagu wada dhufsado si aysan cidna culays u dareemin toban maadaama aad bulsho dhex joogto jirkaaga dharkaaga afkaaga haddaba daawadee qodobadan aan soo xusay qodobkee ayaad isleedahay baahi weyn ayaa loo qabaa ama aad ku cajabiyay oo aad u riyaaqday